Really, you can't believe how. I mean, you could not expect this to happen in Somalia. That one. Ma rumaysan kartid sida doqonnimadan Soomaaliya uga dhacday. Laba madaxweyne oo hore oo midow yahay mucaarad xooggan. Waxa uu u sheegay taliyaha ciidanka xoogga inuu sidan yeelo. Waxa uu yiri maya. Two former presidents. One is strong opposition. Tell CDF to do this. CDF no, we're not doing this. Look, if you mention the name of the CDF to the Prime Minister, he goes up. haddii ra'iisul wasaaraha ku soo hadal qaado magaca taliyaha ciidanka xoogga fadhiga ayuu ka istaagayaa aadna waa u necab yahay waana isku reer labadooda he hates that and yet he's from his time. So really all of these things which we know and we've been knowing for quite a long time and we still know waan ka warqabnaa arrintan muddo dheer waana ay ka sii daraysaa and it is true what has happened in the Plain, what happened before, because there was another substance over. Nobody made much noise about it because no permanent person was killed in the system. But this one, they're even, I don't know. waa run waxa ka dhacay beledweyne qaraxyo waa dhici jireen laakiin sidaas loogama qaylin jirin waayo qof si weyn loo yaqaano laguma dilin kan waxaa ku dhintay xildhibaanad markay ogaadeen inay jirto fursad farmaajo dib loogu dooran karo ayay go'aansadeen inay u isticmaalaan dilka xildhibaanada inay uga hortagaan dib u doorashadiisa Not necessarily because of the lady herself, but the capital she represents for the moment, use that to block the budget or another attempt to block the budget. Why is Midowga not to consider? Why was Delhi siding with Midowga on Garbahara? The idea was to block the numbers. But now they are seeing that, oh, they may not be able to block this now. muxuu Midowga isugu dayi waayay doorashada Gedo muxuu sadani arrinta Garbaharey Midowga ula saftay heshiisku wuxuu ahaa in codadka la kala jabiyo balse hadda waxa ay u jeedaan wax ka duwan I don't agree with all of you that now the battle lines have been drawn and the fight is going to be here because it's apparently clear now that they can now go for the election of the Speaker and Deputy Speaker. These election of the Speaker and Deputy Speaker and these MPs. arrinta hadda waa soo gabagabowday dagaalkana wuu bilaabanayaa waayo way iska caddahay inay mar kale ku guuleysan karaan doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkaba